Bismillahirrahmanirrahim. Waxaan rabaa halkaan inaan baaq uga diro dhacdadii ka dhacday Caabud Waaq inaan iraahdo baaq nabadeeda dhibaatadii meeshaas ka dhacdayna waxaan tacsi u dirayaa dadkii ku geeriyooday odayaashii ku dhintay dadkii ku dhaawacmay runtii waxay arrin aad u xanuun badan oo aan isleeyahay arrintaas waa arrintii ugu damqashada badnayd intii aan arkahayay runtii maalin walbana in dhibaato meeshaas laga soo sheego waa wax na damqinhaya weeye waxaan isla markaa u mahadcelinayaa odayaasha dhex ordahaya oo u kala dabqaadahaya oo doonahaya inay arrintaas wada hadal ku bedelaan sidaa awgeed waxaan halkaan baaq uga dirayaa odayaasha deegaanka ninkii nabadda qaata ayaa waxaan oran karaa waa geesi ninka colaada horiyana waxa weeye waa fulay maanta waan dareemi karnaa salaadii jimco oo maanta ahayd odayaal badan baan salaada soo aadin waan garan karaa ardaydii dugsiyada quraanka ciyaad iyo ciyaalkii iyo haweenkii suuqa soo aadi jiray iyo ganacsatadii maanta ma la aadin waxaasna waxa keenaya waxa weeye dareenka ka jira magaalada sida daraadda deegaanka waxaan qabaa in arrintaas dabada la qabto xaaladaas nabad lagu bedelo nabadana la qaato lana joojiyo colaadda meesha ka jirto. Assalaamu calaykum waraxmatullahi